barasaabka cusub ee gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi ayaa wajahaya xilli uu gobolkan Togdheer marayo halkii ugu hooseysay wuxuuna barasaabkani ku soo beegmay xilli ay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ay tabayaan doorkii dawladda dhexe ay ku lahayd gobolkan Togdheer maadaama uu yahay caasimadda labaad ee Somaliland bulshada ayaa isha ku haysa talaabada ugu horeysa ee uu qaadi doono barasaabka cusub dadka ku dhaqan gobolka Togdheer oo dareesan baahida ka jirta gobolkooda ayaa maruu telefishinka Somali Cable wax ka weydiiyay meelaha ay tabayaan ay ka rajeynayaan inuu barasaabka cusub wax ka qaban doono ayaa waxay ku jawaabeen qataala waxa kamid ah runtii isdhexgalka bulshada oo gobolka Togdheer waxa cid walba baqashaabaha markii uu ku soo dhacaya inuu gobol kala qaybsan yahay xaqiiqatan waa gobol runtii ay dayaceen xukuumadihii ka horeeyay oo wax badan isdhexgalka bulshada waxba ka qaban kari waayeen waxa kale wax ka qaban kari waayeen horumarkii ugu horeeyo stadiumka kubadda cagta ee magaalada Burco isbitaalka weyn ee magaaladu leedahay oo hadda aragto aanad ku aaminayn ba qof bukaan socda qof bukabaad ku aaminayn waxa kale wasaaradihii qaar badan baan xafiisad lahayn oo gobolka Togdheer ka howlgala oo aan wasaarada lahayn isuduwayaashooda oo dabar wadeeg yihiin shaqo la'aanta dhalinyarta oo runtii aad u baahsan dhalinyarta iyo sportskooda oo aad arkayseen in xataa goobihii hore ay ku ciyaari jireen laga iibiyay wax loogu bedelayna aanu jirin dhalinyarta reer Togdheer waxa loo baahan yahay inuu dhiirigelin iyo jihayn u sameeyo marka reer Togdheer la soo qaado waxa la xasuustaa in dhalinyarta ugu badan tahriiba ay yihiin dhalinyarta cid jahaysa marka ma haystaan caqabadaha kale ugu waaweyn waxa kamid ah caasimad ku xigeen dadka ku soo socda ay uga soo degayaan caasimadii oo u jirta masaafo dhan 300 kilomitir ku dhow waa nasiib darro waxa weeye oo sugaya in garoonka diyaaradaha Burco in runtii uu ku dhiirado in la dhiso oo inta uu joogana uu hawl badan ka howlgalo waa waxa sugaya Xamse waxaan leenahay in lagu soo magacaaba yaanay kamera noqonon sidii ragii hore laakiin ha noqoto mid runtii wax badan gobolka Togdheer ka bedesha magacaabidaadu barasaabka cusub waxa hortaaga waxa ka mid ah gobolka Togdheer waxyaabaha wax qabad far badan baa la yiraahdaa waan ka fulinaynaa saacada waxa ku badan dhagax dhiga ku badan waxaan ogsoonaa barasaabadii hore waxay dhagax dhigeen meelo fara badan oo ay ka mid tahay kubadda cagta ay ka mid tahay halkii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya laga dhawaaqay baa ka mid ah oo dhowr jeer la dhagax dhigay ilaa hadda aan wax laga qabtay aan jirin baa ka mid ah gobolka Togdheer waa gobolka ugu dubadhacsan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliya marka loo eego xagga horumarka iyo xagga waxqabadka marka loo eego waxaan leenahay barasaabka cusub hadda sida uu shaqeeyay iyo bulshada gobolka Togdheer ku eegaysa caqabado badan oo ku haysta oo ay haysato mashruucyo badan laga jeexay mashruucyo badan oo shaqeynaya oo ka mid tahay bulshada ariga kashaan walaha deegaanka arkada shaqada dadweynaha inuu socdo oo la daadiheeyo ka filanaya inuu daadiheeyo barasaabka شو شغال قبل تركيز على وحنا يا روحي انا نقطه يعني dabadana naga hayno ogolad deegaanka hayno baraka la shaafacu in dad badan baa jiro barasaabo badan oo gobolkan Togdheer soo maray waxa dhacday in badan dhagax dhigaan goobo badan oo ay dhahaan waxaan qabanayna balse aan halkii ka dhaqaajin caqabadaha horyaalo koow waxa ka ah Mr Xamse gudoomiyaha gobolka in caqabadihii barasaabadii hore ay ka tagi jireen dhagax dhiga kaliya in wax badan ka bedelo sidoo kale waxa horyaala weyn ogsoonahay madaarka magaalada Burco maanta maalintii Burco ay hadda ka horeysay maalinba mar ka dambeysay Soomaaliland horumar bay gaaraysaa iyo gobolkuba balse maanta madaarka Burco wax diyaarada oo ka duula oo falayda ma jiraan taasi waxa weeye uu xiran yahay madaarka Burco caqabadaha horyaala Xamse waxa kamid ah madaarka Burco xiran sidoo kale aad ogtahay garoonkii kubadda cagta ee sportiga ee dhalinyarada ee bulshada isdhexgelinaha waxaan leeyahay barasaabka Allah ha u fududeeyo caqabadahaas balse dhammaan caqabadaha badan ee horyaala barasaabka waxaan rajeynayaa in Ilaahay u fududeeyo gobolka kala qaybsanaan baa ku dhacday waxyaabo fara badan baa ku dhacay heer aanu weligii gaarin ayuu gobolka Togdheer gaaray waxa ku dhacday qiyaamo beela ku dhacday
wax allaala wax ka soconaya ma jirto waad aragtay inkaabayaashii dhaqaale horumarinta meel walba way taagan tahay waan ugu ducaynaynaa insha allah bidnatani waxaan leenahay xamse shakhsiyan anigu waxaan leeyahay dee allah ku fududay hawsha laakiin waxa ku hor taallaa wax weyn baa ku hor yaalla si kastaba ha ahaatee baahida ka jirta gobolka togdheer ayaa la isweydiinayaa qaabkay u wajahayso xukuumadda cusub oo wakiilka uga yahay gobolkani togdheer mudane xamse maxamed cabdi shaafici maxamed ibraahim